xoghayaha cadaaladda xusbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiska ay ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga Muniir Axmed Cigaal saad ka wada war haysaan waxa kowdii bisha maalin khamiisa la xidhay oo waaran maxkamad iyadoon loo wadan sifa sharciyana aan loo marin xorriyadiisii iyo xaqiisii qofnimo laga qaaday Muniir Axmed Cigaal oo ka tirsan saraakiisha xisbiga wadani oo sidoo kale waxa uu xaraan ku tilmaamay booqashadii maalintii Jimcaha ahayd uu ku tagay gudoomiyaha baarlamaanka isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo laga celiyay albaabka saldhigaasi isla maalinkii Jimcaha waxa saldhiga ku booqday gelinkii hore gudoomiyaha baarlamaanka wafdi uu hogaaminayay xogayaha guud waa la hor istaagay biliiska diiday waxaana ku qabteen rasaas bay nagu qabteen oo qoryo nagu soo fiiqeen aflagaado fool xun oo aan milgahaya maamuuska madaxeed meel laba kaga jirina waa loo geystay wali alaankana Muniir wuxuu xidhan yahay cid aan la garanayn maxkamadna lama hor istaajin qodobka shanalaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay qofna xorriyadiisa lagama qaadi karayo firqadiisa labaad waxay leedahay ma banaana in qof la qabto iyadoon waaran maxkamadeed aan laga wadan cidda awoodda u leh waxa kale oo firqadiisa saddexaad ay leedahay qofka lama qaban karayo isagoo dambi faraha kula jira mooyaane waa dastuurka dalka ee damaanad qaadaya xorriyadaha asaasiga ee muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 26aad ee dastuurka firqadiisa saddexaad waxa leedahay qof kasta waa dambiilaawe ilaa inta maxkamad horteed dambigu kaga cadaanayo everybody is innocent until proof is guilty waa qaacido sharciya oo dunida oo dhan u taala dastuurkeenuna ay disan yahay isla firqadii afraad waxay leedahay qofka xorriyada laga qaadaa wuxuu xaq u leeyahay oo xurmo sharcigu u siinaya in qaraabadiisa iyo qareenkiisu ay ku booqan karayaan xabsiga gudihiisa Muniir aabihii iyo waalidkii cidii ugu dhaweyd waa loo diiday inay booqdaan saaka cuqaal iyo madax dhaqameed uu Caaqil Rashiid Jaambir hogaaminayo ayaa u tagay taliyaha biliiska taliyaha saldhiga uu ku xidhan yahay wuxuu ku wargeliyay inaan la sii deynayn loona ogoleyn inay galaan waxaad ka warqabteen in gudoomiyaha baarlamaanka Jimcihii loo diiday oo aflagaado qaawan oo aan qarannimada iyo milgaha madaxeed meel la kaga jirin loo geystay annagoo la socona rasaasna lagu qabtay Muniir maalintii khamiista ilaa imika wuxuu xidhan yahay muddo 3 cisho sanka la galaysa dastuurkuna wuxuu sheegayaa 24 saacadood gudahood waa in qofka xorriyada laga qaaday maxkamad lagu horgeeyo lamana geen cid haysatana lama garanayo Muniir dadka xogogaalka u tagay ama si ku soo arkay waxay sheegeen in jirdil loogu dhex geystay jeelka oo nabara ay ku yaalaan oo tacaddi fool xun lagu la kacay isagoo xorriyadiisa qofnimo laga qaaday in qol ka gaaro kuwa argagixisada lagu xidhay dalkani wuxuu ku kala soconayaa nidaamka iyo sharciga tiina ma cadda xeerarka dunida ee Soomaaliland ay hoggaansan tahay waxa kamid ah international lawga waxa kamid ah Universal Declaration of Human Rights baaqa xuquuqda aadamaha qodobkiisa 9aad wuxuu leeyahay qofna xorriyadiisa lagama qaadi karayo iyadoon authority power maxkamadeed ama cid ku tacalluqdo maamul ayna ka soo bixin biliiska Soomaaliland xeerka biliiska Soomaaliland qodobkiisa labaad qodobkiisa shanaad firqadiisa labaad waxay leedahay booliiska Soomaaliland waa uu adeegaha shacabka wuxuu si siman ugu adeegayaa xisbiyada siyaasiga iyo xukuumadda waxaana uu ka madax bannaan yahay wax kasto ku tacalluqa siyaasad anigu ma garan karayo goortu Cabdilaahi Fadal Iimaan noqday wasiirka arrimaha gudaha goortu Cabdilaahi Fadal Iimaan noqday political figure goobtu uu noqday afayeenka biliisku wuxuu ka hadlayay uu sheegay in uu joogay meesha taliye ku xigeenka ciidanka biliiska marka annagana loo diiday taliye ku xigeenka ciidanka biliisku markii qadafka iyo qalooca fooshaxo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa madaxweynaha lagu la kacay 2 saacadood kadib uu yimid hotel Damal annagoo taagan baan loo soo sheegay inuu yimid isagoo gaari corona wata fooxlo waan u tagnay waxaanu bariya kaga qaadnay gaarigii xogayaha guud uu watay ayuu hal la siiyo waxa markaa la socday inamo iyagana jirdil loo geystay waxyaabaha askartu ay ku hadlaysay waxa kamid ahayd
inay aflagaado ku tacalluqdo hooyada iyo aabbaha guddoomiyaha afkooda ay ka soo yeedhay oo xurmada guddoomiyenimo uu leeyahay cirra uu kaga baydhay waxa kaloo meesha ka dhacday in qoryo aakeeya iyo baaskoolada loola soo baxay guddoomiyaha oo la yidhi 2 tallaabo haddaad imika hore u soo qaado laabtaanu kaaga dhufani anagu goobjoog aanu ahayn faysal xiis markuu shalay toola hadlayay uu lahaa afayeenka aniga ah faysal nin weyn oo mas'uul oo xeerka bileyskana wax ka yaqiino oo ixtiraam qaranku u hayaan ku ogaay goortu sida qaawane fooshaxun uu hadlay iyo been abuurka uu sameeyay garan kari maayo waxaan ugu baaqanaa ciidanka bileyska dalka nabadgelyadiisu idinkeediin taala inaad ugu adeegtaan haween iyo kuray gaar oo dana gaar leh ma aha xasaanad iyo xil qaran baad haystaan karaamadiina ilaashada oo kuradan iyo haweenkan dalkan iyo dadkan baabinaya iyana dabadayda ka soo galin baan ugu baaqanaa iyaga mana garan karano goortaad idinku adeegayaashooda gaarka noqoteen ummadda dhexbaad u tihiin haddii ay ka firsan weydo inaad dhexdhexaadnimada ku shaqaysaanna annaguna tiinoo hoggaansan mayno wabillahi tawfiiq figa caalamiga rayo caasimadda Soomaaliland Hargeysa